aad ayaan u jeclaay kaliya uma jecleen quruxda ay leedahay waxaan u jeclaay wax walba inaan la qaybsado waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso dareen leh oo xambaarsan waa hubaal qisadan haddii aad dhamaysatid in wax badan aad faa'iidi doontid qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan nin ayaa waxa uu guursaday gabar muddo markay isqabeen gabadhu aad ayay u xanuunsatay maxaad is leedahay ninkii waa uu sameeyey inta badan waxaa la sheegaa xanuunku inuu yahay wax la isku naco marka uu imaado laakiin qofka sida dhabta kuu jecel waa kan mar walba kula qaybsado xanuunka dhibka dheefta mar walba waxaad dareemaysid gabadhu aad ayay u xanuunsatay waxaana ku dhacay xanuunku ku dhaco maqaarka bini'aadamka gabadhii quruxdeeda aad ayuu u saameeyey xanuunku ku dhaca jirkeeda waxay ahayd gabar aad u qurux badan ayay ahayd ninkii markii gabadhii xanuunka uu ku dhacay aad ayuu u niyijabay wuxuuna dareemay xanuun fara badan gabadhu niyaddeedu waxaa soo gashay ama ku nacaa qofka aad jeceshahay waana su'aal inta badan ay isweydiinayaan labada qof ee lamaanaha midkood markuu xanuunsado marxaladaha adag inta badan 10% in la isku dulqaato aad ayay u adag tahay laakiin dadka sida dhabta ah isku jecel waxa ay yihiin kuwa mar walba iskugu dulqaato xaaladaha dhabta ah iyo nolosha heer walba ay soo marto ninkii waxa uu galay safar muddo ayuu ku maqnaay safarkii markii uu ka soo noqday ninkii waxa uu galay shil gaari waxa uu ku waayay labadiisii indhood ama aragiisii ninkii waxa uu soo noqday gurigiisii asagoo indhoolo ah ayuu imaaday gabadhu jirkeedu waxaa ku dhaca xanuunka ku dhaco jirka bini'aadamka labadoodu waxay noqdeen midna jirka ayuu ka xanuunsaday midna indhoolo ayuu noqday waa qiso aan isleenahay labadoodu waxay ahaayeen labo dareenka dhabta ah iyo qiso xanuun badan ee ku dhacday ninkii guriga markuu imaaday muusan arkeen xaaskiisa siday tahay xaasku oo keliya ayaa ka roon oo gacanta ayay qaban kartaa waa ay wadi kartaa maadaama ninka indhoolo uu yahay gabadhu inkastoo sidoo kale ay tahay ayadana gabar ka xanuunsanayso jirka ama maqaarkeedu isbedelay maalinba maalinka ku xigo gabadhu waxaa aad isku sii bedelayay jirkeeda iyo maqaarkeeda waxaana guud ahaanba sii burburayay xanuunka ee jirkeeda sidoo kale quruxda ee lahayd ayaa halkaasi ku baabaaday ninku aad ayuu u niyijabsan yahay laakiin labadooduba wax noloshoodu iska bedelamaysan jirin aad ayaynu iskugu qanacsanaayeen noloshoodu waxaana dhihi karnaa lamaanihii nolosha isku aaminay kuwaan ayay ahaayeen haddaysan noloshu dhadhan lahayn wax macno ma keenayso xaaladaha adag markay imaadaan haddii la isku samri waayene noloshu wax macno ee keenayso ma jirto lamaanaha waxay ahaayeen lamaana xagga nolosha xaaladda marka adag ay imaado ku samro gabadhii muddo markay la xanuunsanaysay xanuunka jirka ama maqaarka bini'aadamka ku dhaco ayay markii dambe waxay u dhimatay xanuunkaas awgiis gabadhii waa la soo duugay markii la soo duugay ninkii aad ayuu u murugooday wuxuuna xusuusta galay ama qalbigiisa uu tabay naxariistii mar walba gabadha uu ka dareemi jiray aad ayaynu u adag tahay nolosha marka aad weyso xaaskaada ninkii mar walba waxa uu go'aansaday mar qura inuu ka guuro magaaladii uu degnaay si uu u hawo gidisto maadaama xusuustiisa aad ay u taabanayso gabadhii muddo uu jeclaay sidaas isagoo ku fakarayo ayaa waxaa ninkii u imaaday boqorkii magaalada ka talinayay markaas ayuu dhahay warniyoo xaaskaada way dhimatay ayada ayaa ku wadi jirtay adigana indhoolo ayaa tahay ee hadda yaa ku wadaayo hadalka muusan iska waalin jawaab u fiirsasho leh ayuuna siiyey boqorka taasi oo ahayd
marka oo dhahay aniga indhoole ma ihi kaliya waan jilaayay waxaan u jilaayay sababtu waxay tahay in saaxiibtay xanuunka haayo marka anigoo indho leh ay aragto ee ka sii naxdo ama taasoo ah marka indhahayga aan ku fiiriyo in saaxiibtay si kale u fakarto xanuunkana uu ku sii siyaado ayuu dhahay sidaas ayaa indhoolo u jilay haddana waa ay dhimatay aniga oo xaaladda indhoolaha jilaayo taasina waxay keentay in labadeenu aan isku kalsooneen ayuu dhahay ninkii ayaa sidoo kale waxa uu raaciyay anigu xaaskeeda quruxdeeda oo kaliya ma jecleen waxaan jeclaa ayuu dhahay dadnimadeeda naxariisteeda waxaan ku soo guursaday jacayl qurux badan quruxdu waa ay dhamaataa jacaylka laakiin ma dhamaado aad ayaan u jeclaay weligeena waan jeclaan doonaa qisadan waxa ay nooga turjumaysaa ama ay noo sheegaysaa mar walba inay tahay noloshu isku qanacsanaan haddaysan noloshu isku qanacsanaana aysan jirin guud ahaanba inay meesha ka bixi doonto xaaladaha adag markay imaadaan guryo badan oo dhisnaa inay burburaan adiga ahaan meeqo guri oo sidaan u dhisneed oo marka gabar ama ninka uu xanuunsado oo kala taga ayaa taqaanaa laakiin samarka iyo jacaylka haddii uu daacad yahay waa hubaal gurigaas inuu dhisnaa doono waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 aaladeena Facebook TikTok inta ku kulmi doono qiso noocan oo kala nabadgelyo adigana haddii aad hayso qiso noocan oo kala waa noo soo gudbi kartaa mar walbana hooyga mucaashaqiintu wuxuu u taagan yahay qisooyinkiina uu soo gudbino dhalinta nagu xiran